السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمركلة سودا واضح أدي هذا ومهتسنتهين ما أنت واحد سجالي لباتنك إيش الله بيتبنى ديسمبر سنة كلابا كون إيه أفري لباتنك وقال كان ما أنت وحربا إنه نجاه الله محيطها هي سبب دونالد ترامب ودونيو إن جزيرة جرينلاند أو كترسان ودن كدنمارك إن أمريكا ولوريجو سبب ودونيو محيطها هي ترامب وحنقولنا هاي تضبط كان إن جرينلاند kanaalka Panama oo maalin dhawaataan ka soo hadlay iyo waliba Canada uu yiri saddexdaasiba waa inay Mareykanka ay gacantooda ay soo galaan waxa ay noqotay marka arrintaasi arrin la yaab leh kanaalka Panama waa anigii ka soo hadlay taariikhdiisa sidii lagu dhisay xilligii Mareykanku uu ku wareejiyay Panama iyo sidoo kalena in hadda mar kale uu doonayo Mareykanku inuu dib u soo wareego hadda bal aan eegno jasiiradan Greenland oo boqortooyada Denmark ka tirsan maxay tahay sababta Donald Trump uu u doonayo in gacanta dawladda Mareykanka ay soo gasho horta jasiiradan waa jasiirad yar waxaana dadkeedu u dhan yahay 56,699 qof waa 60,000 xitaa ma dhama waa dad yar ayaa ku nool jasiiradaasi North America ay ku taalaa oo u dhaxaysa meel u dhaxaysa North America iyo waliba Europe laakiin North America ay ka tirsan tahay marka boqortooyadu waa jasiirad madax bannaan isla markaana calankeeda leh iyaduna isxukunta oo baarlamaankeeda leh 80% waa baraf inta badan sababta loo degi laayahay waxay tahay waa baraf ayaa fadhiya meelaha la degi karo aad ayay u yar yihiin marka Donald Trump waxa uu yiri oo bartiisa Truth Social uu ku soo qoray toddobaadkii hadda la soo dhaafay sababta aan u doonayno inaan Greenland ula wareegno waxa ay tahay ammaanka wuxuu yiri qaranka iyo sidoo kale xornimada guud ahaan caalamka iyo waliba Mareykanku waxa ay ku xiran tahay in aan la soo wareegno oo aan yeelano isla markaana aan xukunno Greenland hadalkaasi xilli safiir uu magacaabay boqortooyada wadanka Denmark ayuu qoraalkan soo raaciyay safiirka uu magacaabana waxa lagu magacaabaa Ken Howry waxana uu sheegay in danta Mareykanka uu ka talin doono markii uu sidoo kale Panama kanaalkeeda uu ka hadlayna safiir uu magacaabay ayuu ku soo lifaaqay haddana safiirkan markii uu magacaabayay ayaa gacan ku haynta Greenland uu ku lifaaqay uu yiri Mareykanka gacantiisa waa inay soo gashaa ma ahan markii ugu horeysay marka Trump uu isku dayo in jasiiradan Greenland uu la soo wareego Trump waxa uu hore isugu dayay sanadkii 2019 markii uu madaxweynaha ahaa inuu Greenland la soo wareego waxaana hadalkaasi boqortooyada Denmark ay ku tilmaantay mid aan caqli gal ahayn Trump ayaa sidoo kale waxa uu joojiyay markaasi booqasho uu ku tagi lahaa wadanka Denmark ayuu gabi ahaanba kansalay marka Trump ma ahan madaxweynihii ugu horeeyay ee isku daya in jasiirada Greenland uu gacanta dawladda Mareykanka uu soo galiyo sanadkii 1946 dagaalkii labaad ee adduunka markii uu dhamaaday madaxweynihii xilligaasi Harry S Truman ayaa waxa uu isku dayay in uu jasiiradaasi kala wareego wadanka Denmark waxaana uu bandhigay lacag $100 milyan in uu ka siinayo xitaa waxa uu sidoo kale soo jeediyay in qayb kamid ah Alaska ay ku kala bedeshaan wadanka Denmark waxa uu yiri Alaska qayb kamid ah ayaan idin siinayna markay Greenland ugu soo wareejiyo arrintaasina ma aysan suuragelin haddana 1987 wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa haddana mar kale isku dayday laakiin arrintaasi ma aysan suuragelin haddana 2024 Trump ayaa waxa uu doonayaa in jasiiradaasi Greenland uu dawladda Mareykanka ay gacantiisa ay soo gasho maxay tahay sababta muhiimka ah ee Trump uu doonayo in jasiiradan ay gacanta dawladda Mareykanka ay soo gasho dhowr arrimood oo muhiim ayaa jira midda koobaad waxay tahay locationka ama halka ay ku taalo jasiirada Greenland waxa ay ku taalaa waqooyiga badda Atlantika iyadoo sidoo kalena ay u dhaxayso Europe iyo sidoo kale North America waxaana sidoo kalena xilligii dagaalkii qabooba uu jiray ay Mareykanku halkaasi ka sameysteen saldhig military oo ilaa iyo hadda wali ku yaala sidoo kalena waxa ay Greenland ay sababta muhiimada ay locationka ama halka ay ku taalo waxa ay sababta ay muhiimad istiraatiijiyad muhiimada ay u leedahay waxa ay tahay waxa Mareykanku uu doonayaa in uu kala socdo gantaalada ay wadamada Ruushka iyo Shiinuhu laga yaabo inay Mareykanka ay ku soo tuuraan sababtaasi waa qayb kamid ah sababta uu doonayo Trump in uu jasiiradaasi uu la wareego Mareykanku isaga nafsad ahaantiisa gantaalo waa uu ka tuuri karaa halkaasi waxaan ognahay Ruushka iyo Shiinaha iyo Mareykanku hadda inaysan isku fiicnayn
sababta labaadna waxa ay tahay Arctic race ayaa jira meelaha barafku uu ku badan yahay oo buuraha barafleyda ah oo Arctic loo yaqaano. Hadda isbedelka cimilada adduunku waa uu sii kululaanaya maalinba maalinta ka dambeysa, barafkiina waa uu milmaya. Marka waxaa fudud marka sida lagu gaaro meelahaasi. Hadda marka maalin kasta waxaa sameysmaya biyo hor leh oo waxa la leeyahay baddu sare ayuu usii kacaysaa maadaama barafkii uu dhalaalayo, barafkii biyo ayuu noqonayaa, badduna sare ayay usii kacaysaa. Marka barafkaas inuu dhalaali doono sanadaha soo socda ayaa hadda khubaradu ay sheegayaan. Sababtaasi darteed ayaa marka Mareykanku waxa uu u doonayaa in uu joogitaankiisa uu ku badiyo Greenland. Sidaa darteedna waxa uu doonayaa in dagaalkaasi ka taagan buuraleyda barafka ee Arctic ee qaboobaha in isaguna uu ku guuleysto. Ruushka waxaa la arkay iyagoo xarumo ka sameysanayo Arctic-gaasi sanadihii ugu dambeeyay. Sababta saddexaadna sidoo kale waxay tahay Greenland waxay leedahay kheyraad dabiici ah oo muhiim ah. Jasiiradan waxaa ku jira macdan dhif ah in la helo. Macdantaasi waxaa ka mid ah uranium, waxaa ka mid ah scandium, waxaa ka mid ah neodymium ayaa ka mid ah. Waxaana macdantaasi laga sameeyaa baabuurta electriga ayaa lagu sameeyaa, mobilada iyo sidoo kale waxyaabaha kale ee electroniga la xiriira. Marka kheyraadkaasina sidoo kale jasiirada Greenland waa uu ku jira. Marka markii Trump hadalkiisa uu soo baxay waxaa ka hadlay ra'iisul wasaaraha jasiiradaasi Greenland ninka la yiraahdo Mudde Egede, waxaana uu yiri Greenland inaga ayaa iska leh, iibna ma ahan, sidoo kale mana iibin doono. Waxaana uu yiri muddadii dheer dadaalka aan ugu jirnay xornimadeena halkiisa ayuu ka sii socon doona. Boqortooyada Denmark sidoo kale waa ay ka soo hadleen. Wasiirka gaashaandhigga ee boqortooyada Denmark ayaa waxa uu yiri waxaan doonaynaa inaan ku maalgelino jasiirada Greenland lacag gaaraysa 1.5 bilyan oo dollar. Waxa uu sheegay in wasiirka gaashaandhigga ee boqortooyada wadanka Denmark ninka la yiraahdo Troels Poulsen sanado badan waxa uu yiri ma aanan maalgelin dhulkaasi buuraleyda ah, laakiin hadda waxaan qorsheynaynaa inaan joogitaankeena sii xoojino. Waxaana uu yiri waxaa arrin la yaab leh ah in damaca Mareykanka iyo arinteenan maalgelinta aan maalgelinayno jasiiradaasi Greenland ay isku soo beegantay, laakiin wuxuu yiri way naga go'an tahay inaan maalgelin. Wuxuu yiri diyaaradaha droniska iyo sidoo kalena doomaha ilaaliya halkaasi iyo weliba eeyo fara badan ayaa waxaan ku bixin doonaa lacag si aan jasiiradaasi aan u ilaashano. Marka ninka Donald Trump ahaa waa kan mar kale dhahaya Greenland ayaan doonayaa inaan la wareego. Sidoo kale wadanka Canada waa kan dhahaya gobolka 51 waa inuu ka mid noqdaa. Hadda baarlamaanka ayaa soo laaban doona 27 bisha January ee soo socota xilliyada fasaxa kadib. Waxaa la filayaa ra'iisul wasaaruhu inuu kala diri doono baarlamaanka maadaama qaar ka mid ah golihii wasiirada ay iscasileen. Hanjabaadii Trump ka soo yeertay oo ahayd canshuurta 25% ayaa alaabta Mareykanka aad u soo dhoofisaan idinku kordhinaya haddii aadan joojina dadka soo galootiga sharci darrada iyo daraagiska dhinaca wadankiina nooga imaanaya ayaa dowladda Canada qalqal ku abuurtay. Sida darteed xitaa waxaa jirtay shalay 2 wasiir oo ka tirsan dowladda Canada inay Mar-a-Lago ay kula kulmeen ninka Trump uu u magacaabay arrimaha xadka iyo masaafurinta. waxaana ka mid ah sidoo kale wasiirkii hore isku casilay oo ahaa wasiirka ganacsiga iyo sidoo kale ra'iisul wasaare ku-xigeenka ninka hadda uu magacaabay oo markii horena ahaa wasiirka badqabka dadweynaha wadanka Canada ayaa ka mid ahaa labada xubnood ee shalay Mar-a-Lago kula kulantay Trump iyo tiimkiisa waxayna ka wada hadlayeen xoojinta arrimaha xadka iyo waliba dadka soo galootiga iyo arrimaha draagiska iyadoo sidoo kalena dowladda Canada hadda qalqal ay ku jirto oo laga yaabo inuu wadanku uu doorasho aado marka wayna arki doonaa Trump iyo damaciisa ku aadan Canada Greenland iyo waliba kanaalka Panama marka uu xilka la wareego waxyaabaha uu ka sameyn doono sidee ayuu doonayaa inuu saddexdaasi meelood oo sheegay uu wadanka Mareykanka ay qayb ay ka noqdaan wadan dhan oo Canada la yiraahdo daris la oo xuduudda ugu dheer ilaa iyo 15 gobol ay xad ka wadaagaan Mareykanka ayaa waxa uu leeyahay waa inuu gobol ka mid ah gobolada Mareykanka u noqdaa marka aad u mahadsantiin waxyaabaha kale ee soo kordha haddii aan idin wada la socodsiin doonaa intaan markale kulmi doono waa saaxiibkiina cilmi waarwadin la sida iyo nabadgelyo